shacabweynaha waan salaamayaa intaas kadib insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo mudane baar waxaan ku weydiin doonaa insha Allah hadduu Ilaahay su'aalo yar oo kooban magacaygu waa Abukaata Cabdirasaaq Xaaji Cumar Ibrahim qareen u ah Cabdiwaaxid Muxsin Ibrahim dabcan su'aasha ugu horeysa waxay noqon doontaa hanti dhowre adiga miyaa Cabdiwaaxid Muxsin Ibrahim baaris ku soo sameeyay بسم الله الرحمن الرحيم محكمة gobolka Banaadir dhamaan xafiiska xiriiryaha qareenada dadweynaha waxaan ahay Maxamed Faarax Barrow waxaan ahay baaraha kiiska maxkamadda horyaalo wuxuuna kamid ahaa dad kiis baarista aan ku soo sameeyay oo kamid ahaa oo dadkii aan baarista ku soo sameeynay uu kamid yahay mudane Cabdiwaaxid Muxsin Ibrahim aniga su'aasheed ma adiga shakhsi ahaan baare adiga miyaa ku soo sameeyay hay miyaa عبدواحد شخصيتي عبدواحد محسن إبراهيم يعني كيس كان عبدواحد محسن إبراهيم بارس أديك مياه كسو سمي ولا حريري بارس كسو سمي ها أوكي قرمي أيها وربحين دم بسوق قارت حفيز كان تدور قوي كوالي دورة حنت دورة كوالي قرمي أيها وربحين يعني وربحين تا دم بيا يعني إني جبتو أي سوق قارت حفيز كان تدور وما سنت أبوكات وربحين حلقة warbixintana way ku qoran tahay warbixinta xafiiska Antidoor guud qarankan way ku qoran tahay inta halkan soo istaagay dhowr jeer aan sheegay waxay soo gaartay 4 Maarso warbixintana waa ka dhigan kartaa okay ma waxaad baaris ku sameysay xafiis uu mas'uul ka yahay Cabdiwaaxid Muxsin Ibrahim xafiisku ka shaqeynaya ku sameeyay aniga ku weydiiyay waxa aniga ku weydiiyay jawaab haye maya xafiis oo mas'uul ka yahay Cabdiwaaxid Muxsin Ibrahim yaad baaris ku sameysay xafiis oo mas'uul ka yahay ma ba arkin ba xafiis oo ka shaqeynayay waa santa kuma sameyn ma jirtaa dokumenti aad soo heshay oo muujinaya lacagna lagu lunsaday mid la been abuuray oo ku saxiixan yahay Cabdiwaaxid Muxsin Ibrahim dokumentiyo waa soo helnay lacag lagu lunsaday aniga waxaan ku weydiiyay saxiixan yahay waxaan ku weydiiyay kaliya jawaab waxaan ku dhahay سؤال شفهم قدر كذا نوجه جواب هذا هاي يميت أنا هاي ما يوجه جواب ما جبت دوكومنتي أما دوكومنتي لبين أبو ري أما العقل اللي دوكومنتي أو كوس صحيحية عبدواحد محسن إبراهيم وهذه قال له ذلك كنت محكمة ما جبتها ما يها ما كيف حساب تبارستا وتوكل صنتها إنسان في لايف صح في الشو محكمة بسوق الدين وتوكل صنتها أوكي عبد واحد أقسم ما هي صومها مش يجني له أقسمها أنا وقت دي ما يها وربحنتي إذا كم قرن أقسمه ما يا عبد واحد مدح قيبيد ما هي صومها ما يا أوكي مسؤول حلها يا ما هي صومها سهل رشك مسؤول وقع مسؤول حلها حلك حد بس أدو لقيس النوعان مسؤول وقع هيئة دولية كشقيناي إنه هيئة دولية كشقيناي إنه قف مسؤول قف كستو استركال دولية مسؤول وسؤال شاس مدي لك رأيته وحال أمسنتها يسمعها مسؤول حلها إنه يعني عبد واحد حلنا كهية واحدة شقدي شقالها جارهان حفيزك فوق برمتك مسؤولية دي حلك وهاي أيام قصة شاقنا وربحنتها مسؤولية وهاي أحكام هذا لو ذاك وما سنت أبو كاتع عبدواحد محسن إبراهيم وحوك شقينا وسارد شقادي أرمها بالشدة وحوك قرنا واحدة مالية واحدة سوق شقين رالها قرين هذا يودي سؤال محكمة وفافاهي أقول هذا وفافاهي محكمة مرة الله وزارة وحوك شقينا واحدة مالية كم أوسن ماشى سوق قرنا سيدي هيئة وزارة الشقة أرمها بالشدة قيبها كلا دول نوع عديان كم أوسن شقينين وحوك شقينا واحدة أوسن قرنين أو شرعي حرير كشقالها أو قيبت الرخصة بحنت وما سنتهي marka la dhahay mas'uuliyadna qof kasta oo sarkaal dawladeed waa mas'uul waad sheegtay waaxdaas oo ka tirsanaya tiri mana la wadaagi kartaa dabcan waxaad xafiiska xirwalaha guud ee qaranka aad la wadaagtay ama maxkamadda sidoo laftigiisa la wadaagay warqad halkan aan ku hayno oo guddiga shaqaalaha guddiga qaran shaqaalaha rayidka oo soo qoray
kuna meeleeyay cabdiwaaxid wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mana la wadaagi kartaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada warqad ay qortay oo cabdiwaaxid ay ku geynayso waaxda maamulka iyo maaliyadda agaasimihii waaxda wuxuu cadeeyay si sharci darro inuu meesha ka aniga waxaan ku weydiiyay aniga kuma weydiin agaasimaha sharciga waxaan ku dhahay meela wadaagi kartaa warqad oo qoray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ama agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ama xafiiska HRM-ka oo uu ku meeleeyay su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay warqadaana rabaa caddayn ahaana loo soo gudbiya cabdiwaaxda loogu soo gudbiya haaya may kaliga weydiiyey warqadan waxaa ku saxiixan xasan abshow waxaa aniga aan ku weydiinaya waxay tahay warqad wasiirka uu qoray ama agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada uu qoray ama xafiiska HRM-ka warqad uu qoray oo uu ku meeleeyay cabdiwaaxid kuna meeleeyay waaxda maaliyadda maamulka iyo maaliyadda meela wadaagi kartaa وما سنتها مدن أبو كات أنا ما يها كلين كهرباء أنا ما يها ورقد أسميت سماه أبو كات وما سنتها أنا يها يا ما يكهرباء بليس وقت محكمة هكذا ما سؤال شتى كوي ده يبجت فقف هدرور ما جرتها ورقد وزارة الشقة يرمى بالشدة كصوب بحذو عبد الواحد محسن إبراهيم الأولى ميلي ماشي وكشقينا ما يقدوي صعب أوكي warqadan waxay ka dhigan tahay Soomaha official letter yani waa ka gudbiya warqadan malahan waa ka gudbiya ma yahay ka gudbin warqadan waxay ka dhigan tahay hadaa wax lagu weydiin iska afadii ka gudbiya warqad dakhli qabasho ah ama warqad la yiraahdo general receipt waxa bixiyay Soomahan wasaaradda shaqada wasaaradda maaliyadda waxa ayna u gudbisaa bangiga dhexe igu cali warqada loo yaqaan general receipt هذا بحث أنا وقتني هذا طبعا ورقداس واحد بحي وزارة المالية ده وحين أوجد بسبب كده صح سوما ما يها بقي كده هيوجد بسبب مالية ده بحسب بقي كده هيوجد بسبب أدية وما سنتها ما أوكي وحاربا ما دام أتري هري عبد واحد وحاربا أنا ما وفاهم مرة بينا قالنا سعاد ريبوت أي جود بسي ريبوت كي اسمها جود يوجد بسي حاكم وحوها طبعا وجود كيسة إن عبد الواحد بوسيشة كلا جرد حصامها أنا سعاد مياه ريبوت كلا سوق بي ريبوت كلا سوق بس أنا كم سعاد أو كات أنا مسعاد أنا هذيك سعاد مثل لكن جيميل كعلي أو كات ساش جيميل كا طبعا سؤال شدان ku celiyo su'aad report ay agaasimaha guud u gudbisay kana gudbisay Cabdiwaaxid Muxsin Ibrahim ujeedkiisuna waxa uu ahaa in Cabdiwaaxid position-ka laga reexdo waxaan haynaa anaga dokumentiyo su'aashaas ma khusayso hanti dhowraha su'aal kale weydii okay hadaan ku gudbo hadii aad soo baartay Cabdiwaaxid ma la kulantay لما كل من إيميل أو دري وأنا يسوي جوال. واحد سميسي بارس عدالة كل سنة صح؟ ها. أوكي. ما دام بارس هذا يكسر بلا وترى كنت مني سديدي إلا لما تكون لبعتني سد حدا مسوق جاتي إن عبد واحد حفيز كأوسو هريين سراكيل ولي من الجار عيشان لما أيتها كملجار halka saddexda kalena shaqaale rasmi yihiin ilaa maantana ay ka shaqeeyaan baaristaada ma ku soo sameysay maadaama baaris aad xafiiskana aad yani baaris aad ku soo sameysay dadkaas su'aasha inaad fahantaan u maleynayaa siday u socoto waa su'aal haa iyo maya keliya dadkaas ma soo baartay أو كاتو ما سنتها وزارة الديو بدن وكل دوانا وشقيه dadkaas ma baartay waaxda gaar ahaan xafiiska أو كاتو هرش dadkaas xafiiska joogo shanta qof oo laba ku meel gaar iyo saddex rasmi ah ma baartay واحدة أنت يا أو تجنا دم أصوبر ها ما baartay loo ma baartay hay okay hadii aad soo baartay adinka oo shaqaale kale iyo agaasimayaal kale inay joogeen xilliga baarista waxa aad gooni uga dhigteen afarta dabcan eedeysan maxkamadda hor jooga maxay tahay sababta aad gooni aad uga dhigteen
ومحسنتها مدن أبو كاتة mas-uuliyaadka iyo shaqada qofka loo idmaday ee hay-adda institutionka dowladeed oo ka shaqeynayo u idmaday waajibaadkaas waxyaabaha khaladaadka ee ka soo baxay ayaa ka gooni yeelay dadkii kale meesha joogay oo ka shaqeynaya ayaa ka gooni ah waxaad sheegtay okay waxaan rabaa inaan maaragtay laba su'aal yar baga 21 buuggii aad dabcan aad maxkamaddana buugga waa haddii ay ogolaato buugga inaan ku wareejiyo baga waan soo koobiyey baga 21 waxaad ku sheegtay sanadaha tusaale ahaan sanad walba lacagta la soo xareeyey baga 21 markaad timaado 2021 oo muwakkilkayga uu joogay waxaad sheegtay in la rabay in la soo xareeyo lacag gaaraysa 4,242,770 dollar halka aad sheegtay sanadkaas 2021 in la xareeyay 2,340 ayna ka maqan tahay dawladda dakhliga aan lagu shubin 4,240,430 dollar haddaba markaad timaado baga 57 oo isla sanadka 2021 aad ka hadlaysay xisaabtii aad soo gudbiseen ilaa 67 waxaa ku xusan sanadka 2021 lacagaha la qabtay oo gaaraya 700 kuna dhacday dakhliga dawladda gaarayana 700 oo kun oo dollar marka iswaafaji reportkaaga marna waxaad leedahay sanadkaas waxaa soo xarootay lacag gaaraysa 2,340 dollar marna waxaad leedahay lacag gaaraysa 700 kun oo dollar ayaa sanadkaas la soo xareeyay reportkaas waxaan rabaa inaad iswaafajiso labadaas report waa mahadsantaha mudan abu kaatay ma waxaan soo qoray 2,000 soo xarootay qoraalka iyo buugga iyo warbixinta si fiican iskaga akhri waa ku qoran tahay waan ku tusinayaa waxaa ku qoran jadwalka markaad fiiriso 2021 sanadka waxaad tagtaa baga 21 tag waad soo qortay boga 21 markaad joogto ruqsadda shaqada work permit-ka sanadka muwakkilkayga uu joogay ayaan wax kaa weydiinayaa sanadaho dhan wada qalada ku jira kulli laakiin aniga waxaan rabaa inaan si gaar ah kaa weydiiyo kaliya sanadka uu muwakkilkayga joogay ruqsadda shaqada ee sanadkaas dabcan waxaa meesha ku qoran 4,242,770 dollar ayaa la rabay in la soo xareeyo laakiin waxaa la xareeyay oo ku dhacay akoonka 2,340 halka ay ka maqan tahay 4,240,430 dollar haddii mar horeba aad yani soo nambaray lahayd laguma jahwareerin ma haysaa mudan abu kaatay waa mahadsantaha warbixinta aan usoo gudbiyey waatan iyo hortaalla waxaas aad akrinaysana hadday warbixino kale qaybta hoose tag qaybta hoose ma joogtaa page 22aadna waa tegey ruqsadda shaqada maxaa ku qoran meeshaan page number sheeg please page-ka 21 aad hayso laftirkiisa waa page-ka 21 ee hadda aad hayso dulmar guud oo ka bilowdaa abu kaatay maxkamadan warbixinta maxkamadana way haysaa anna waa hayaa page-ka 21aadna waxa uga hadlaysa kuma qorna xagee ka keentay page-ka 21 tag waa kana maxkamadda way haysaa maxkamadda sharafta leh abu kaatay subax يعني markii laga fiiriyo waxay sug waxay page-ka 21 maxkamadda wax uu qoran ma leh oo jadwal maya kaas ma mudan garsoore gudoomiye hadda 21 lambarkaad maadaama number uusan lahayn hadda wuu soo bixiyey wax yar ka hor laakiin wuu gadiyey ha qaldamin been ay sheegin inuu maxkamadda waxay wax sug anta loo raso su'aasha aan rabto page adoon aan u sheegin su'aasha toos weydii caadi su'aasha aan ku weydiinaa waxay tahay 2021 dulmarka guud meesha ay ku qoran tahay سرف سؤال عادي ويدي انت اساس سو خيرت انت سو خيرت اسوافجي سؤال اساس سو سocota okay su'aasheeda waxay tahay 2021 waxaad ku soo qorteen waxa la rabay in la soo xareeyo
lacag gaaraysa 4,242,770 ayaa la rabay in la soo xareeyo sida ku qoran ruqsadda shaqada qaybteeda. Okay, ruqsadda shaqada ee SFMIS ayadana waxaad ku sheegteen in dakhliga dawladda uu ku dhacday $2,340 halka markii la kala farqiga lacagta maqan ay noqonayso markii 2,340 laga jaro lacagtii hadda aan soo sheegay ay soo baxayso ee maqan $4,240,430. marka waxaad sidoo kale waxaad ku sheegtay biga 57 ilaa biga 67 marka laga hadlayo lifaaqa 2021 marka laga hadlayo lifaaqaas lacagaha SMFIS-ka yani galay wuxuu markii la isku dardaro dhammaan waxay noqonayaan $700,000 2021 marka xisaabtan iswaafaji marna waxaa leedahay $700,000 waa ku fahmeen xisaabta iskala duwan iswaafaji oo isku hal sana maxkamaddu way mahadsan tahay abukaata adigana waa mahadsan tahay abukaatuhu su-aashuu i weydiiyey mudane guddoomiye waa qoraal dheer oo lacaga laysku daray iyo waxyaabo la kala jarjaraayo uu meel ka akhrinayo warbixinta aan maxkamadda la soo wadaagayna waa warbixin xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka uu u soo diray maxkamadda iyo xafiiska xeelaalinta waa warbixin saldhig iyo meel loo noqdo leh hadduu maanta dhan sharaxo xisaabaad isku daro ama kala jaro aanan aqoonin meesha bayska u ah uu ka soo qaaday mudane guddoomiye ma sharaxi karo maxkamaddan ka abukaate difaacaga ku darso cabara ku celisay waana okay waxaad sidoo kaleeto tagtaa bogga 72 qareennada waxaa fiicnaan lahayd intay bog iyo aadi lahayn su-aal qoran ay weydiiyaan oo maanta dhan bog aan lagu wareerin iyo raadiskiis bogga su-aal haddii qoran tahay su-aashiina qoran tahay weydiiye laakiin su-aalaha maadaama maxay tahay boggan 72 mudane guddoomiye lacaga ku qoran maxay tahay lacagta la rabay in laga qaado xildhibaan hore mahad salaad oo ku qoran bogga 72 lacaga ku qoran lacagtaas ku qoran bal maxkamadda u sharax maxay tahay lacagtaas waa mahadsantahay mudane abukaate dhammaan hay-adaha dowladda iyo saraakiisha dowladda marka la joogo ruqsad bixinta iyo dalku galka fiisaha waa muwaadiniin xuquuq u leh inay helaan aas-aasiyaadka adeega dowladda waa marka koowaad waxayna ugu duwan yihiin adeegayaasha loo adeegayo ee ajaanibta ah inay ayaga muwaadiniin soomaaliyeed yihiin ama xafiis dowladeed ha u shaqeeyo ama xafiis horey ha ugu shaqayn jiro midda kale ah mudanaha soo hadda la qaaday exactly beijkayga 72 aniga waa joogaa kumana qorna 72 maxkamaddana way arki kartaa anigana waa hayaa maxkamaddana warbixinta way haysaa walaalow marka waa ku qoran tahay in la soo hadalka fiiri waxay hanti dhowr sug abukaate meesha hanti dhowraha wuxuu u taagan yahay amba baaraha wuxuu u taagan yahay in su-aal weydiiyo uma joogo inuu cashar ka baxo beij ku qoran su-aalaha daa qabto weydii waa ka jawaabaa boggaas iyo boggaas waxaa qabtane difaacaga hadhow ka dhigo laakiin su-aala si aan waqtiguna nooga dhumin maxkamadda uga dhumin adigana aanay kugu dhicin in waqtiga uu iska soo dabanaado asagana wixii uunu fahmi weynin su-aalaha tooskaa weydii wix ishkaaliyadoo qabto bog ku saabsanne bog caddayn la soo gudbi waayo difaacaga ka dhigo okay maxkamadda sharafta la aad u mahadsan tahay maadaama hanti dhowraha oo boggan asiga soo qoray muhiimaddana ay tahay dad muwaadiniina ay yani u eedeysan yihiin waxaan wax ka weydiinaa waxay ahayd waa xisaab ku qoran isla buugga abukaate sharciyan hal shay sharciyan buugga caddaymo sidooda u taagan maho inay difaacdaan xafiiska xeelaalinta laga rabaa baaruhuna waa caddayn si gaara u taagan
oo su'aalo in la weydiiyo ay tahay waa sax su'aalaha marka waqtiga maxkamaddu waa idin ogoshaa inaad buug wax ka weydiisin laakiin buug yaan haddii loo weydiiyo waqtiga waa dhumaa waa 500 buug ku dhawa ama 200 ay su'aalaha kale waa su'aasheedaan sii galayaa haddii halkaas ku gudbo oo aad sheegtay inaad ku kalsoon tahay xisaabaadkaaga waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cabdiwaaxid waxaad sheegtay in uu lunsaday lacag gaaraysa 6,161,640 halka aad ku sheegtay agaasime cabdullahina aad sheegtay 8,667,240 halka sidoo kaleeto aad ku sheegtay agaasimaha kale maxamed cabdi mukhtaar 3,604,900 dhammaan afarta xisaabood markii la isku geeyo ee aad sheegteen waxay noqonaysaa waa 32 milyan ay noqonaysaa laakiin xisaabta maqan ee aad sheegteen waxa ay tahay oo aad ku sheegtay 12 milyan bal iswaafaji marna waxaa soo baxaysa 12 milyan inay maqan tahay ayaad si sariix aad u sheegaysiin xisaabtan qof walba aad ku eedaysayna waxaad sheegtay in ay tahay haddii la isku daro 32 milyan dawladdana waxaa leedahay dakhliga waxaanan ku dhicin 32 milyan 12 milyan waxaana meeshaan ku qoran waxay tahay xisaab gaaraysa 32 milyan bal iswaafaji hadalkaaga si xisaabtan waa la soo qoray waa maasan tahay mudan abukaate cabdiwaaxid muxsin ibraahim muddada uu joogay wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada waaxda sharciga iyo xiriirka shaqaalaha qaybtaas uu ka shaqeynayo marka hore waxaan sheegnay inuusan ku qornayn marka labaad adeega waaxdaas laga qabanayay marka la isku soo dardaro qiimaha lacageed ee maalinta uu meeshaas ka shaqo bilaabay ilaa maalinta ugu dambeysay adeega guuda laga qabtay qaybtaas waa sheegnay warbixintay ku caddahay marka laga jaro lacagta dawladda loo xareeyey ee lagu qabtay hay-adaha kale dawladeed ee mas-uuliyaddeeda ahaayeen ee hayaan oo xilli walba ay caddayn karaan marka laga jaro adeega guud ee la qabtay ee aan baasaboorradii iyo work permitkii aan hayno maxkamadan usoo gudbinay marka farqigaas la kala jaro waxaa soo baxaya qiimo lacageed qiimahaas lacageed marka aan joogno waqtiga cabdiwaaxid uu joogay waxaa la joogay agaasime oo ay ahayd lacagtaas mas-uuliyaddiisa in la xareeyo marna mas-uuliyadda marka aan u kala qaadno marna waa agaasimihii waxaan u malaynayaa inaad mas-uuliyad iyo sii gashay aniga waxaan ku weydiiyey keliya waxaa waaye waa xisaab bis ah abukaate maxkamad ma tihid su-aasha aan kuu dhammeeyay jawaabteeda raalli ahow marka qiimaha lacageed laysku soo dardaro muxsin iyo dadyowa kale aada magac dhowdayba waxay la qaybsanayaan lacagtan maqan oo ahayd in hanaanka dawladda lagu qabto oo aanan lagu qabanin mas-uuliyaadkooda qof kaste waxaad u malaysaa lacagta maqan cadadkeeda inaad ii sheegto fadlan ila wadaag warbixintay ku qoran tahay beejbeejay ugu qoran tahay qofay ugu qoran tahay xilli walbaana akhrisi kartaa oo maasanta lacagta maqan waxaa maxkamadda sharafta le ka codsanayaa lacagta maqan akoonka dawladda ka maqan su-aasha santadhooraha inay ii weydiiso waa su-aal muhiima waaye lacagta wadarta guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada la rabay inay soo xareyso ee maqan inuu maxkamadda la wadaago lacagta guud ee abukaata waa ku ixtiraama waana kaaga jawaabaa su-aalahaaga waa mahadsan tahay lacagta guud ee maqan si sanadle ah waxaa ugu soo qoran warbixinta haddii aad fiiriso pageka 3 ee warbixinta xafiiska hantidhowr guud ee qaranka waxaa ku qoran 2018 ilaa 2023 in la qabtay adeeg dawladeed oo dhan 15,602,260 qiimo lacageed adeeg loo qabtay dad ajaanib ahaa dad mudnaa adeegaas in loo qabto lacagta la xareeyana waa 2,652,990 dollar lacagta aanan la xareynin ee u dhaxaysa lacagta la qabtay adeegeeda iyo lacagta la xareeyay marka la kala jaro waxaa soo baxaysa lacag 12 milyan ah 950,170 dollar marka equationka ah lacagtan muxsin lagu soo eedeeyey
oo ah intaan haddaad ii sheegtay cadadka aad ii sheegtay waa ku mahadsantahay aan ku dhameeyo abukaate cadadkan ku horeysa keliya maxkamadda waqtiga ilaali ha intaas okay waa ku qanciyay su'aasha saa ku weydiiyay waan ku qanciyay hal qodobad rabaa gudoomiyaha ku dar waxrish su'aasha lagu weydiiyay waa ka jawaabtay qareenka asaas su'aal ku weydiiyay ujeedkan wuxuu ka lahaa in su'aasha uga jawaab war qoonasay maadaama aad ku sheegtay warbixintaada buugga aad ku sheegtay inaad ka soo qaaday dukumentiyada aad soo gudbisay inaad ka soo qaaday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ma la dhihi karaa wax mas-uuliyada wax allaala wixii ka qalda dukumentiyadan maadaama aadan ka soo qaadin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gaar ahaan xafiiska sharciyada gaar ahaan waaxda sharciyada xafiiska work permitka maadaama aadan ka soo qaadin oo aad ka soo qaaday hay-ad kale hay-addaas kale wixii ka khaldan ayadaa mas-uulkaas oo lama dhihi karo maya sidee maxkamadda bal inaad u sharaxaan kaa rabaa sidee hay-ad kale dukumentigeeda aadan ka soo helin yani hay-adaada dukumentigeeda aadan ka soo qaadin hay-ad kale sideed ugu qiyaas qaadanaysaa waa mahadsan tahay labada hay-adood ha ilooben inay hal dowlad isku yihiin hal xafiis ay ku wada shaqeeyaan hal meel ay tahay waa marka koowaad marka labaad oo ah hay-addan maadaama aadan dukumentigii ka soo qaadin hay-ad kale aad ka soo qaadin sidee ugu kalsoonaan kartaa waxaa jiro habraac horeyna maxkamadda aan ugu sharaxay ee ah qofka muwaadinka ee qofka ajnabiga ah ee dalka inuu ka shaqaysta loo ogolaan karo oo fiisa kordhin la siin karo waa inuu haystaa ruqsad uu ku shaqaysan karo tusaale qofkan hadduu aids qabo oo bulshada soomaaliyeed uu fasahaadinayo lama siinaayo fiise iyo ruqsad lama siinaayo saa darteed marka waxaa horeeya ruqsad macnaha waxaa ka hadlaya ajnabi cudurro faafa oo halis ku ah bulshada soomaaliyeed qabo kale waxay tahay shaqadooda inay marka hore ruqsadda inta aan la siinin ka hor ay soo baaraan ruqsaddiyaa marka la soo siiyey ruqsadda marka la soo siiyo kadib wuxuu imaanaa fiise kordhin baaristeena intii aan ku guda jirnay wasaaradda mas-uuliyiinta wasaaradda iyo annaga waxaan caddaynay sistamyada iyo dukumentiyada inaan lagu kalsoonaan karin maadaama uu jiray marka qodob habraaca hay-addaas kale oo ayadana hay-addi ama hay-ad kale oo annaga aan jeebka keen baaristay ku jirtaa isla hay-addaas laftigeeda warbixinta ku qoran maadaama labada hay-adood laysla baarayay qodobkaana uu caddaynaya in hay-addan ayadoo dhammaystiran laga helayo sidaasaan u isticmaalnay waana wax aan maxkamadda usoo waa mahadsan tahay maadaama aad dhahday waxaa loo cuskanayaa dhammaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dukumentiyada laga helo in laga helo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada su-aashaan ku weydiinaya hadda oo daba socotaa waxay tahay waa haa iyo maya keliya sow ma jirto dad aanan maraynin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo looga adeegayo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha haa iyo maya bis aniga ma arkin okay haddaadan arkin ma jirto soo maaha horta ma jirtaa dad aniga ma arkin dadaan looga adeegin ma jirtaa aniga maana soo arkin su-aasheeda ugu dambeysa wax wada shaqayna yani hab ay ku ogaan karaan oo san oo labada wasaaradood ka dhexeeya maxkamadda ma la wadaagi kartaa habkaas ma jiraa hab fudud oo wada shaqayn labadooda waa mahadsan tahay maya haa bis marka hore maxkamadda sharafta waxaan ka codsan lahaa su-aalaha maya iyo haada ku habboon su-aashaas oo kale hadda maya intaba jawaabteeda ma noqonaysa abukaad haddaan ku idhaahdo maya anoo hanti dhowro ahaan waxaan soo ogaaday lacagta xarootay lacagta la qabtay waa habraac aniga aan sameeyey xafiiska hanti dhowr guud qarankana u jideeyey hay-addan meesha ay ka shaqaynayso mas-uuliyaadkeeda ahayd adeega ay qabanayso oo ajaaniibta ay u qabanayso lacagta laga xaray waa simbol qofkan ka hortaagan lacagta hay-addan usoo qabatay oo qolkan kaasoo horjeeda degan inay lacagtan xarootay in soo istaago hubin karaa emailaa lagu xiriiri karaa hanaan yaroo fududaa la samayn karaa abukaad wax fudud waa fiiri meesha dhan waa halkudhin waa wax yar tusaalaan kaaga soo qaadanayaa qofka markuu ka soo dego ajnabiga ka soo degay maamul goboleed kaloo rabaa maamul goboleedkaas ayuu kaarka work permitka ka jarnaya sax qasam miya saxda maxaa ula jeedaa
shanta maamul goboleed ee ma waxa wada dowladda shaqeynaa kala dhaxaysa waaxdan aan ku mahadsan tahay shanta maamul goboleed ee dowladda federaalka hoos yimaada maamul goboleed kasta wuxuu bixiyaa ruqsadda shaqada u madax bannaan oo lacagtiisa maamul goboleedkaas u xaroota waxa aan soo baarnay ee warbixinta aan ka soo qornay shantaas maamul goboleed mid ka mid ah kuma jiriyo maxkamadda inaan caddeyn rabaa arrinkaas shanta maamul goboleed wixii ruqsad shaqa ee qabtaan daatadooda iyo dukumentigooda waa la helaa waana baaris kale laakiin baaristan waa woogbirmadyada ruqsadda shaqada ee muqdisho ee hay-adda socdaalka iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ee qabata oo keliya inaan kugu celiyaa rabaa abuukaata arrinkaas wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxay muqdisho ku qabatay oo keliya ma ku jiro wax maamul goboleed ah xataa hal baasabor allah ka dhigay maamul goboleed kasta wuxuu qabtay goonidiisu u xareeyaa lacagtiisana ugu dhacdaa waa la fahmay abukaad su-aasha kugu dambaysay su-aasha ugu dambeysay aan weydiin rabo insha allah hadduu ilaahda waxay noqonaysaa dabcan maxkamadda sharafta leh mar labaad halkaan mar bogga inuu ila tago ayaan jeclaan lahaa bogga 78 haddii PDF-ka laga fiiriyo 78 soo baxay nambarka 78 ay la tago bogga 78 awqaatu PDF anaga warbixintaana PDF kumaana bixin haddii ay jirto warbixin PDF adaa laga rabaa meesha ka keentayna cadays anaga warbixin daabacan ama maxkamaddii xeeraaninta la soo wadaagay yani PDF haddii uu jiro waxaa jeclaan lahaa arrinkaas in anaga u baahan bakaanti dhowr ahaan warbixin software xafiiskanta dhowr guud qalanka mamnuuc ka tahay inuu bixiyo su-aasha waxaa ka horeeya warbixin software xafiis qaran waa ma bixiya xagee ka keentay aniga kuma weydiinta ana su'aal inay weydiisa maaha anaa su'aal ku weydiinayo shirkadda la yiraahdo waxaa tagtaa SFS shirkadaas warbixin software walaalo ma bixin aniga warbixin software kuma weydiin ma batigi kareen intee ka tagay abukaad su-aal weydii okay su'aalaan ku weydiinayaa waxaad sheegtay in shirkadda SFS inay ahayd in laga xareeyo lacag gaaraysa 7,900 balse qasnada dawladda aysan ku dhicin dabcan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo imise qof ayaa imise ajaanibi ayaa loogu adeegay 7,900 ee ku qoran xisaabta warbixin software maana bixinin warbixin software kuma weydiin waxaan ku weydiinayaa waxay tahay waa buugga beejka ee warbixintaas kaga qoran tahay abukaat inaan la soo baxday aan wax iska weydiino waxaa telefoon ku wadata waxba iga weydiin buuggaagan kaa weydiinaya waa ha buugga la soo bax buugga la soo bax ee waxay dhahdaa su-aasha lagu weydiina ka jawaadi buugga tag waa mahadsantaa mudane guddoomiye buugga aan haysto oo maxkamadda aan u soo gudbiyey waxaan jeclaan lahaa inay ila aragto maxkamadda su-aasha uu weydiinayo qareenka kuma qorna sidaa darteed mudane guddoomiye warbixinno aanan annaga shaqo ku lahayn ama ani aanan soo gudbinin in su-aal laiga weydiiyo maxkamadda horteeda haddana la igu qasbo kama jawaabi karo maxkamadda aan soo laguma qasbin sug adi su-aasha aan weydiinaya xagee ku qoranta warbixinta ma qoranta warbixinta ay ku qoranta hay aaw xagee ku qoranta bogga 78 markii la tago ma hayno annaga ma hayno boggaas warbixintana waa haynaa number nooguma qorna mudane guddoomiye buugga dhan number muusa soo sameyn xafiiska 78 xagee ka xiganaya marka adiga waxaan ka xiganayaa isla buuggaan ka xiganayaa softi ahaantii ma softi ma gudbino ku dhahay maxkamad softi loo soo gudbin abukaad su-aal kale hadaa qabto weydiis raalli ahow su-aal kale hadaa qabto weydiis softi soo ma gudbino ku dhahay inta aan meesha joognana wax softi aanana looma soo gudbin su-aal hadaa weydiinaysana waa ku hortaagan yahay maxkamaddu way mahadsan tahay aad ay mahadsan tahay salaamu calaykum